madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha dalka Egypt Abdel Fattah al-Sisi ayaa bilaabay tilaabooyin dib loogu soo celinayo xiriirka labada dal iyagoo mid waliba uu magacaabay safiirka matali doona safaaradda dalkiisa. tirada dhimashada ayaa hadda maraysa 10 qof inta iminka la og yahay, halka dhaawacuna uu ka badan yahay 100 qof kadib markii ay ciidamada Israa'iiliyiintu ay weerar cirki iyo dhulka ku qaadeen magaalada Jenin ee daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta. madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall oo warbaahinta kala hadlay dadweynaha dalka Senegal ayaa sheegay inuusan mar saddexaad u tartami doonin qabashada jagada madaxweynenimo ee wadanka Senegal. qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu kuga haynaa warkeena haddii ee beedmo. waayaha daawadayaal kusoo dhawaada wixii naga soo gaaray dalka gudihiisa iyo dabadiisa oo aqriyo anuga Maxamed Saciid Saxaaf. aan ku bilaabay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha dalka Egypt Abdel Fattah al-Sisi ayaa bilaabay tilaabooyin dib loogu soo celinayo xiriirka labada dal iyagoo mid waliba uu magacaabay safiirka matali doona safaaradda dalkiisa. xiriirka ka dhaxeeya wadamada Turkiga iyo Masar ayaa ahaa mid liita dhawaanahan iyadoo ay si weyn ugu kala aragti duwanaayeen siyaasadda wadamada gobolka bariga dhexe. sanadkii 2020 ayay si toos iskaga hor yimaadeen hogaamiyaasha labada dal iyagoo warbaahintu isku mariyay hadallo iskugu jiray dhaleeceyn iyo digniin. balse waxay labada mas'uul ku kulmeen magaalada Doha ee xarunta dalka Qatar oo ay labaduba ka mid ahaayeen martidii lagu casuumay ka qaybgalka ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkii 2022 lagu qabtay wadanka Qatar. halkaas oo ay isku salaameen labada madaxweyne, gogoldhigna u noqotay bilowga wada hadallada labada dhinac iyo dib u soo celinta xiriirka wadamada Turkiga iyo Egypt. tirada dhimashada ayaa hadda maraysa 10 qof inta iminka la og yahay, halka dhaawacuna uu ka badan yahay 100 qof kadib markii ay ciidamada Israa'iiliyiintu ay weerar cirka iyo dhulka ay ku qaadeen magaalada Jenin ee daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta. ciidamada Israa'iiliyiinta ayaa sheegay in ujeedada weerarkoodu uu yahay inay magaalada Jenin ka sifeeyaan ama ay ka saaraan waxay ku tilmaameen kooxaha argagixisada ah oo ay sheegeen inay ku dhuumaaleysanayaan gudaha magaalada Jenin, waa sida hadalka u dhigeen. hadalka Israa'iiliyiinta ayaa si carale waxa uga jawaabay hoggaanka sare ee Falastiiniyiinta, waxayna ku tilmaameen hadallada Israa'iiliyiintu inay yihiin kuwa lagu baneysanayo dhiigga shacabka Falastiiniyiinta. weerarkoo bilowday maalinimadii Axad ayaa waxaa ka qayb galay 150 ka mid ah gawaarida dagaalka, in ka badan 1000 askari iyo weliba qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Israa'iiliyiinta. ciidamada Israa'iiliyiinta ayaa si gaar ah u weeraray xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada Jenin, xeryahaas oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 14,000 oo qof oo u badan haween iyo caruur barakacayaal ah. qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay weerarka xooggan ee ay Israa'iiliyiintu ku qaadeen magaalada Jenin, waxayna ugu baaqeen inay joojiyaan weerarka iyo weliba dhismayaasha sharci darrada ah ee ay ka dhisanayaan dhulka Falastiiniyiinta. madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall oo warbaahinta kala hadlay dadweynaha dalka Senegal ayaa sheegay inuusan mar saddexaad u tartami doonin qabashada jagada madaxweynenimo ee wadanka Senegal. hadalka madaxweyne Macky Sall ayaa imaanaya xilli ay kacsan tahay xaaladda amni iyo midda siyaasadeed ee dalka Senegal sabab la xiriira diidmada ah in uu mar kale ka mid noqdo musharaxiinta madaxweynenimo ee wadankaas. waxay sanadkii 2021 markii ay dhaceen dibadbaxyo ballaaran oo wata rabshado oo lagaga soo horjeedo siyaasadda madaxweyne Macky Sall. waxaana sidoo kale xusid mudan in mar kale ay rabshado dhaceen bishii tagtay, rabshadahaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof kadib markii xabsiga la dhigay qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ee ka soo horjeeda siyaasadda madaxweyne Macky Sall. doorashada dalka Senegal ayaa lagu wadaa inay dhacdo 25 bisha February ee sanadka 2024. go'aanka madaxweynaha dalka Senegal Macky Sall ayaa waxaa soo dhaweeyay qaar ka mid ah madaxda wadamada gobolka, gaar ahaan madaxda dalalka Niger, Guinea-Bissau iyo weliba madaxda midowga Afrika. madaxda ayaa sheegay in go'aanka madaxweyne Macky Sall uu yahay go'aan qayb ka qaadan doona sugidda amniga iyo xasiloonida dalka Senegal iyo guud ahaanba wadamada gobolka. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawateen warkeena maanta, waxaana ila socodsiinayay aniga Maxamed Saciid Saxaaf. intaanu ku kulmayno warkiisa xiga waa bahda wararka oo isku duuban oo idinkaga tagay meel baad caalamka joogtaan. sidaas iyo nabadgelyo.